madaxweyne xasan sheekh maxamuud hubka ma ka dhigi karaa sheekh shariif sheekh axmed maxaa ka socda muqdisho magaalada muqdisho waxaa ka taagan dood cusub waxaana ay la xiriirtaa hubka ku jira gacanta siyaasiyiinta nidaamka madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo lagu eedeynayo boob hanti hub urursi iyo dhismaha maleeshiyaad gaar ah ayaa hadda u ruqaansaday in ay hubka ka aruuriyaan inta ka aragti duwan madaxweyne xasan sheekh ayaa awooddiisa shakhsiga ah ku beddelay dastuurkii lagu doortay isagoo qortay mid u qaabaysan in ay wax walba ku dhammaadaan sida uu asigu u rabo wallow uusan weli dhaqangelin dastuurkaasi la beddelay madaxweyne xasan sheekh maxamuudna markan wuxuu tijaabinayaa in uu asigu noqon karo awoodda ciidan ee qudha ee muqdisho taalo maadaama uusan haatan dalka ka wada talin waa hub ururin siyaasadeed oo dhaqangelinteediina ay dhibaato ka dhalan karto dadka Soomaaliyeed ayaan weli si dhab ah ugu heshiinin colaadihii sokeeye waana midda keentay in ay weli jiraan qawaa'ilo hubeysan madaxweynihii hore ee dowladdii ku meel gaarka Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa si weyn uga hor yimid hubka dhigistan siyaasadeed ee haddii la aqbalana ay ku dhammaan doonto xukun boob iyo in mucaaradka la xirxiro dadkana la caburiyo Sheekh Shariif Sheekh Axmed wuxuu ku yiri kooxda Xasan Sheekh ee alifatay qorshahan ha soo daahina waana idin fahansanahay isla muqdisho dowladdii hore ee madaxweyne farmaajo ayaa isku dayday qorshe noocan ah si ay awoodda ciidanka ugu isticmaalaan xukun dheereysi laakiin waa la diiday oo gunaanadkiina kooxdii farmaajo waa u shaqayn weysay in ay xoog ku joogaan xukunka dadkii shala diiday hubka dhigista magaalada muqdisho oo uu farmaajo doonayo inuu mucaaradka uu ku sameeyo xasan sheekh maxamuud ayaa ka mid ahay maantana asiguna wuxuu rabaa inuu mucaaradka uu ku sameeyo hubka dhigis taasina suurtagal ma ahan hadda madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo asigu ahaa ninkii diiday hubka dhigistii dowladdii hore hadda ma u suurtageli kartaa si gaar ah waxaa loo eegayaa madaxweynihii hore shariif sheekh axmed oo loo yaqaano siyaasi saameyn ku dhex leh ciidanka sidoo kalena leh diiwaan ciidan sheekh shariif gurbaba waa uu sii hormarsaday oo uu ka soo horjeestay qorshaha madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaana la soo warinayaa in maalmihii la soo dhaafay magaalada muqdisho uu ka waday kulamo uu la yeelanayo siyaasiyiin iyo ciidan damac hubka dhigista shalay ee farmaajo iyo midka uu maanta wado xasan sheekh maxamuud labaduba waa dooni siyaasadeed iyo dariiq la rabo in loo maro in si fudud lagu kala adkaado caasimadda nidaamka madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa maalin walba tijaabinaya go'aano qariskatuurnimo ah mana qaataan talooyin badbaadada ilaa ay birta is arkaan sidii maalin hore ka dhacday raasan kambooni waan arki doonaa xaaladdaas iyadoo mucaaradkana ay hadda urursanayaan hub oo ay sii diyaargaroobayaan halka madaxweyne xasan maxamuudna oo ciidan gaar ah uu samaysanayo institutionadii dalka u shaqay lahay kuwa wax doorta iyo kuwa wax la doorta la baabi'iyo oo dalkii dhan hal qof oo noqdo waxaa imaanaysa niyad jab ummadda soo waajaha arrintaasna waa arrin khatara waa arrimo aan ka digayno doorasha laga hadlaayo warkeeda iska daaya war meesha dawlad ma loogu imaanaa wax lagala wareego ma loogu imaanaya hadalku taagan yahay inaan fahmna waay taas maxaa yeelay hantida qaranka qaar aan laba gedi karanaa jira ilaa afti dadweyne ay gasho waa xerooyinka ciidamada kuwa kalena waxay leeyihiin procedure iyo nidaam loo gado midna lama soo maray ina ogtiina umaleynaa maxaa ka dhashay waxaa ka dhashay qof 20 sano 30 sano meel deganaa oo asaga laftigiisa qayb ka qaadanaya xoreynta dalka inaa barakicisid oo ilmihiisa banaanka u tuurtid qof kale oo hantiyada ana oo hanti ka sameeya ka dhalatay qofka muwaadinka sharciga noogu qorantahay wuxuu xaq ugu leeyahay dawladda deegaan hooy ayuu leeyahay marka ka bixinayso guri ama deegaan waa ina u diyaarisaa meel kale hantidaana meelay aadayso cid og lagama arkin wasaaradda maaliyadda bangiga lagama arkin meelay aada lama yaqaan wax yarna ma ah waagii hore dadku waxay isdhahayeen wax kooban waa la iska dayn doonaa laakiin hadda waxaa muuqata si waa sidii loo bartay iska wad arrintaas arrimahan ka digayno oo dhaawacaya kalsoonida bulshada maxaa yeelay dawlad sideeda macnaheedu muxuu yahay dawladdu waxaa waa dadka inuu adeegto maxay qabanaysaa amni waxay samaynaysaa cadaalad waxay ka shaqaynaysaa wax kasta oo qofka muwaadinka noloshiisa ku saabsan intuba ma jiraan amnigan ka warhaynaa cadaaladdan ka warhaynaa
institutionada shaqadaas qaba lahayna tabartooda meesha yartaa gaartee afkaa lagu dhigay oo ugu horreeya baarlamaanka waa hay-addii koowaad oo wax dooranaysa haddii shaki soo galo baarlamaanka xubnaha codeeyey ma dhan yihiin mase ma dhamma arrintaas ogaada arrin oo aad u culus waa arrin fiican ma arrin aad iyo aad u xun waa sharciyadan hadda la ansixinayo nidaamka loo maraayana waa khaldan yihiin waxa ka dhalanaya oo ah in la sii kala fogaado maxaa yeelay qofkii wax tabtay ee yidhi sida wax u socdaan raalli kuma ihi caqligu wuxuu sheegaa inaad tidhaa soo fadhiiso maxaa diidda oo kala doodid oo doodda uga adkaatid ma dhicintaas waxaa la sheegay hadda xildhibaanaha puntland jira go'aanay ka soo saareen kuwo kalaa jira jubbaland go'aanay ka soo saareen kuwo kalaa magaalada nala jooga oon xaggana tegin intana imaanin to be honest waxaasoo dhan lama sheegin marka annaga ujeeddadeenna waxa waaye aan rabno in la fahmo dowladnimada aan lagu ciyaarin wakhti badanaa soo galay juhdi badanaa soo galay dadaa naftooda u waayay dadaa xoolahooda ku baxshay dadaa shinsanaya marka qof inuu ka sameeyo wax uu rabo oo yidhaah laygugu sacbiyo oo xoolo ku bixiyo arrintaas waa nasiib daro madaxweynaha xilkiisa cid ku haystaa ma jirto wakhtigiisa laguma haysto laakiin waxaa lagu haystaa sharciga uu ku tumanayo waxaa lagu haystaa hantida qaranka oo boobka ku socdo waxaa lagu haystaa baabi'inta hay-adaha kala duwan ee dowladda ee baarlamaanka ugu horreeyo awoodahoodii la baabi'iyey baarlamaanka maanta waxaa la soo gaarsiiyey inuusan lahayn awood uu wax ku jaagarayo xukuumad lama xisaabtami karo madaxweyne su-aal ma weydii karo waxaan la soconnaa oo mithaal idinkugu filan oo weligeed adduunka meelay ka dhacda aan la arkin heshiis aan la arkin in laga ansixiyey baarlamaanka waxaan u malaynaa aan la arkin ansixiyey oo madaxweynuhu inta hor istaago oo waraanaa iduuga ii ansixiya horta maxaa ka sugaysaa waxaa ka sugaysa maxayiin marka waxay u socotaa soomaaliyay qarannimadii mugdiyay sii gelaysa hala tasho annaga hadda talada noo taalla oo aan ka shaqaynayna waxa waaye wax damboo maanta laysweydiiyaa oo maanta la yidhaha dowladdii ha laga saxo waa soo dhammaadeen waxay taagan tahay war biyuhu ma intay guraayaan aan fiirinaynaa mase dad soomaaliyeed oo waxgal oo waxtar ahaa jire waxaan dhahnaa talaha laisku yimaado marka waxaan rabnaa inaan u dirno hay-adaha dowladda dhammaantood sida wax u socdaan hadday istaagi waayaan waxaa lagu khasbaya in tale la aado waajib muqadas ay tahay maxaa yeele waxaa u jeedda inay derbi ku soo dhammaanayaan inaa maalin walba rajo ku xirto sax ma ah waa kii hore loo soo diiday kan waxaa sii raacday xishood la'aan ayaa raacday kii hore iyo kan haddaa isu fiiriso waa isla same scenario laakiin kan muxuu dheeryahay xishood la'aan uu dheeryahay marka xishood la'aana ummad meel ma gaarsiinayso mar kale waxaan uga digaynaa nidaamka guracan iyo kutumashada sharciga iyo bedelaadda sharciga iyo anaa iri dalkan kuma socdo kama hadlayna annaga maxay ahaato aniga ha lay daayo tala qaran waaye tala guri maaha tala qoys maaha waa tala qaranna waxay u baahan tahay in loo tala badiyo maxaa yeele dalkan wuxuu soo socda marxalado adagoo ka soo baxay in maanta dib loo celiya anaga dhanay xanuun nagu tahay maxaa yeele waxaa ogtihiin dadaalaa naga galay intuu raba ha la ekaado qof walboo soomaaliya wanaagsan dadaala ka galay dadaalkii marka waa inuu u baqaa inuu u fikiraa inuu yidhaahdaa see loo hagaaji lahaa